daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iminkana akhbaaraadka dibadda Falastiin ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay Mareykanka si ay wada tashi ula yeelato madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay inuusan aqbali doonin qorshe nabadeed oo hadda kadib ka yimaada dhinaca Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiiniyiinta Riyad Al-Maliki ayaa sheegay inuu u yeeray ergeyga ururka xoreynta Falastiiniyiinta ee PLO ee u fadhiyay Washington rabshado ayaa ka dhacay jiida Gaza kadib markii uu Trump ku dhawaaqay go'aankaasi 13 Falastiiniyiin ayaa ku dhimatay rabshadahaasi oo inta badan u dhaxeeyay dibadbaxayaasha iyo ciidamada Israa'iil Mareykanka ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee Qudus u aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil waxay noqonaysaa dalkii ugu horeeyay ee tallaabadaasi qaaday tan iyo markii la gumay xukuumadda Israa'iil sanadii 1984 Israa'iil ayaa haysatay bariga Qudus tan iyo markii uu dhacay dagaalkii bariga dhexe sanadkii 1967 waxayna goosatay 1980 waxay u aragtaa in iyadu leedahay laakiin shuruucda caalamiga waxay dhigayaan in ay tahay dhul la haysto Israa'iilna waxay Qudus u aragtaa in ay weligeed ahaan doonto caasimadooda aanan la kala qaybin karin laakiin Falastiiniyiintu waxay u arkaan bariga Qudus inay tahay caasimadda dalka ay mustaqbalka yagleeli doonaan